agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye uu weheliyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saraar iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa shalay socdaal ku tagay taliska Goojcade. Ugu horeyn waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay oo ku qaabilay saraakiisha sare ee aagga bari Cabdirasaaq Bulaale Afgaduud iyo taliyaha aagga bari ciidanka qaranka Somaliland Cali Bare. Sidoo kale waxay halkaasi xog waran kula yeeshay mas'uuliyiinta ciidanka iyo baahiyaha caafimaad u baahayay. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland waxa uu siday qalab iyo deeq caafimaad taasi oo uu keenay taliska aagga bari ee Og. runtii maanta waxaan u soconay safar shaqo oo aan ugu soo kicitinay dhinaca gobolada bariga oo ay ujeedadiisuna ahayd sidii ay wasaaraddu xoggaal ugu noqon lahayd hawlaha caafimaad ee ka socda jiida iyo gobolada barigaba. runtii waxaanu doonaynaa inaanu si weyn ugu kuurgalno cusbitaalada kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ku teedsan jiida hore iyo gobolada barigaba sidii aanu soo eegi lahayn. waxaanu eegaynay sidii ay hawlaha emergency-ga ama gurmadku ay u socdaan. waxaanu eegaynay wasaarad ahaan hawlaha aanu meesha ka hayno iyo haddii ay wax qabyi jiraan sidii aanu xoggaal ugu noqon lahayn indhahayaga aanu ugu soo arki lahayn. maanta hadda aan idinla hadlayo waxaan taaganahay xerada Goojcade oo aanu kula kulannay saraakiisha ciidanka qaranka. waxa kale oo aanu la kulannay unuga caafimaadka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee halkan jooga ama cusbitaalka Goojcade jooga. runtii waxaanu indhahayaga ku soo aragnay hawsha ay hayaan lama ilaabaanka ah. waxaanu soo aragnay baahiyaha jira. waxaanu soo aragnay sida ay kooxdaasi ugu shaqaynayso runtii si dhammaystiran oo muwaadinimo leh oo hawlkarnimo leh oo nafurnimo leh. waxaan jecelahay inaan halkan markaa uga faa'iidaysto oo aan uga mahad celiyo guud ahaan bahda caafimaadka gaar ahaanna inta ka shaqaynaysa hawshan gurmadka. waxaan uma soo fadhiisan halkan inaan shir jaraa'id qabto. waxaan u soo fadhiistay inaan ka mahad celiyo agabka caafimaad ee ay nala garab taagan yihiin ee ciidanka qaranka ay la garab taagan yihiin. maantana uu marayo DG-gii caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo agaasimayaashiisii muhiimka ahaa oo ay hareer fadhiya dhammaantood. waad mahadsantiin baan leenahay. laa shukri cala alwaajib. waajibkiinni baad si fiican u gudateen. warbixinta waxaa idiin soo gudbinaya anigoo Cawka Yara. waxaan idin leeyahay